inaan su'aal weydiiyo wasiir ku noqoshadii miisaaniyadda markii waqtigeedii waxaad baarlamaanka hortiisa ka ballan qaaday in lacaga xildhibaanada ka maqnaa aad bixinayso ballanqaadkii asaga ahaa weliba aad mandate u yeeshay waxba kama ayna suurto gelin arrintaas ayada markaa sideed ugu qancinaysaa xildhibaanada waxa kale oo aad horkeenayso inay iyagana noqonayeen process dhab ah oo la raaci karo aad u deyntii baarlamaanka u lahaa halkan aan isa soo taagay waa run weeye waynu ka wada hadalnay waa run weeye waxaan ku ballan qaaday inaan lacagtaa deynta ah bixin doono waxaan ku tashanaynay markaa waxyaalo fara badan oo soo socday oo daras ahaa ilaan budget kuwa iska daras ayaan ku tashanaynay waxaa ka mid ahaa kabka dhaqaale ee ka imanaya meelaha aan idiin sheegay inaan xoog usii gudagalo looma baahna baan u malaynayaa runtu waxay tahay waxa weeye kabkaa miisaaniyadeed ma iman haddaanu iman kabkii miisaaniyadeed innaga waxay noo yaallay inaan mushaharka maanta bixiyo iyo inaan kaa hore bixiyo ya kaa hore inaan bixiyo kan maanta inaan bixiyo ayaa noo gudboonaatay waxay ila noqotay markaa nala noqotay in aan ka maanta mushaharka maanta bixiyo weli hadda waxa la filayaa jira hadday wax yimaadaan ha layga raali noqdee waan bixin doonaa haddii ilaha idhaa shirkadda World Remit waxay ku daafurtay adeeggeeda xawilaadaha ee Soomaaliya hadda si ammaan ah ayaad lacag ugu diri kartaa qoyskaaga iyo asxaabtaada ku nool waddankii hooyo ku soo biir malaayiin macmiil adduunka ah oo lacagaha si fudud oo ku habboon ugu dira dadka ay jecel yihiin soo dejiso noocii u dambeeyey ee barnaamijkeena aaladda telefoonka ama booqo worldremit.com geli xaddiga lacagta iyo faahfaahinta qofkaad u dirayso lacagtiina way dirsantay bixin maysid wax khidmad ah saddexda lacag dirasho ee kugu horreeya adeegga World Remit adigoo isticmaalaya koodhka 3FREE